waxaynu kaga hadli doonaa weerarkii shalay lagu qaaday waddanka Qatar magaalada Dooxa maxaa ka soo baxay waxyaabaha la yaab kale ee laga diiwaan geliyay oo ay warbaahintu ka hadlayaan maxaa kamid ah maxaa laga dhadhansan karaa shirkii jaraa'id ee cajiibka ahaa shalay gelinkii dambe uu qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar hadallo la yaab leh oo uu shirka ka sheegay haddaba maxay tahay shakiga soo kala dhexgalay Mareykanka iyo dawladaha khaliijka gaar ahaan Qatar hubkii laga iibsan jiray Mareykanka iyo dawladaha kale ee galbeedka hadda miyuu u weecan doonaa dhanka iyo Shiinaha haddaba warar la yaab leh iyo golaha ammaanka oo caawa kulmaya ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya ku faaqidi doonaa barnaamijyada aynu maanta idinku talagalnay inta aan ku jirno wixii warar ay soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii ugu horeeyay maanta Arbacaa haddaba barnaamijka waxaynu ku faahfaahin doonaa dhowr warbixin oo cajiib ah oo kamid ah wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay haddaba waxaynu aad uga hadli doonaa sheekada ku saabsan wixii shalay ka dhacay magaalada Dooxa ee dalka Qatar maadaama shalay safar aan ku jiray oo barnaamijkii warkii degdega ahaa markii aan idin siiyay waxa soo baxay marka ilaa xalay ilaa saakay warar culus ayaa soo baxay oo sheekada ku saabsan haddaba marka ugu horeysa waxaynu ka bilaabaynaa sheekada aad ka loo hadalayo oo warbaahinta oo dhan ay ka hadlayso hadaladii shalay uu jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Qatar waxyaabaha la yaab kale laga diiwaan geliyay hadalkiisa marka hore wuxuu qabtay shirjiraay waxa uu ka hadlay wixii dhacay waxyaabaha uu ka hadlay waxa ugu muhiimsanaa wuxuu yiri Netanyahu hore wuxuu ugu hanjabay shakliga iyo qaabka bariga dhexe hadda uu leeyahay inuu bedeli doono sida muuqatana wuxuu yiri waa bedelnay maadaama uu meeshu rabo iska weerarayo qaanuun dawliya wax ilaalinaya aanay jirin marka sidee ku dhici kartaa oo yiri dad nabad ka shaqeynay oo hindisa nabadeed ka shirayay oo Trump keenay in Israa'iil beegsato hal mid baa ka soo baxaysa oo ah inaysan nabad rabin gobolkana ay u horseedayso mushkilad iyo dhibaato intaas marka waa intuu soo diyaarsaday soo ka hadlay su'aashii ugu horeysay marka waxa weydiisay Al Jazeera gabar Al Jazeera ka socota ayaa ku toortay waxay tiri difaaciyadii cirka aad soo gadateen macnaha Mareykanka ka soo gadateen difaaciyadii maxay wax u tiri waayeen wuxuu yiri horta marka hore wuxuu yiri difaaciyadeenu gantaalihii Iran way qabteen wacdare ka dhigeen inkastoo Mareykanka weerarkan uu waqti dambe soo gaarsiiyay laakiin gantaalaha siday tahay ayaanu qabanno yiri haye laakiin wuxuu yiri maca al-asaf waa ka xunna gantaalaheena way arki waayeen gantaalihii Israa'iil ay soo ridaysay oo garaacay marka meesha waxbaa ku jira hubkan khaliijku inta badan ay ka soo gataan suuqooda intee waay Mareykanka wixii uu rabo way qabanayaan wixii Mareykanku aanu rabin inay qabtaanna ma qaban karo hubkooda ma arkaayo aydi dhageysiyo marka isagii aad uga walwalsan uga murugaysan habkii difaacoodii oo arki waayay wixii ay soo ridaysay Israa'iil Mareykanku wuxuu u keenay Patriot tagaalida kan kaashan ina lacagta fara badan looga daldashay maba arkayaan wallow talagalay haddaba aan dhageysano isagoo aad u murugaysan arinta ka hadlay شاهد كيف تعاملت مع موجة الصواريخ التي جاءت من إيران وتعاملت معها بشكل دقيق ولم يحدث أي أضرار ولكن للأسف العدو الإسرائيلي استخدم أسلحة لم يكشفها هذا الرادار. واتاي مركا وهاركيسان نمكي
halkaasay wax marayaan marka warar kala duwanaa dhinacyada ka socda qaar waxay leeyihiin nimanka waaba la dili lahaa sirdoonka turkiga badbaadiyay oo sheegay in nimanka la khaarijin rabo marka wax walba la isku qaqasay laakiin waxay rabtaa ahaato meesha marka ninka hadalkiisi waa ra'iisul wasaare ku-xigeen ragga miisaanka kule raggii Trump uu yiri waa la hadlay amiirka iyo ra'iisul wasaarihi wadanka waa la hadlay amiirka iyo ra'iisul wasaarihi ana wasiirka arrimaha dibadda waa la hadlay nimankii labada nin wadanka ugu awood badan waa qadar ugu sareeyo ninka dhahaya wixii aan haysanay waa finish Mareykanka ka soo gadan halkaas marka waxa la leeyahay nimankii qadariinta ah ee khaliijka waa cusub ku bari awal wala sheegi jiray hubka Mareykanka ka soo gadato wixii asaga uu rabo la ku shaqeynaa wixii asaga uu sarabin waxa ku shaqeynaa marka hadda runtii arkeen indhoodi marka waa halkaas ay wax ku arkeen indhoodi wax ku arkeen qodobka marka halkaas ay ka gudbeen qodobka labaad dawladda Algeria Soomaaliya dawlado kale oo golaha ammaanka ku jira ayaa ballamiyay xubnaha golaha ammaanka 15 ah caawa 10 fiidnimo xilliga magaalada Muqdisho marka ay tahay inay isu yimaadaan kulan degdeg ah oo arinta qadar looga hadlay laakiin waxa la maxaa ka soo baxay meeshaas wax ka soo bixi kara oo gooniya ma jiraan waa la cambaarayna hadii la yiraahdo Mareykanka diidaya kana sameynaya marka waa uu iska maaweero halkaas meeshaas awqaawshaas golaha ammaanka ayaa marka shiraya leeyahay caawa waxay ka shirayaan arimahan ay ka shirayaan iyo weerarkii qadar lagu qaaday waxyaabaha kale ee aadka looga hadlay waxa kamid ah inay ku fashilmeen Netanyahu iyo kooxdiisu farxadoodii ma dhameystirmin inay dabaaldegaan ay rabeen markii ay gantaalada tuureen way isu yimaadeen isaga iyo qoliyii mayalka adkaa inay yiraahdaan madax kale oo Xamaas ayaa haddana dilnay laakiin waa suuro goobil gal weyso way waxba way dili waayeen halkii marka ay doonayeen madaxda Xamaas inay meesha ku kharajiyaan oo targetkoodu ah waxay dileen dad masaakiin oo kale oo aan marka shaqo ku lahayn hawsha nimanka ku jireen waxa kamid ah wiil yar oo uu dhalay Khaliil al-Hayya wiil xafiiskiisa ka shaqeynay iyo kuwa kale oo iska shaqaale caadi ahaa iyo ninka tirsanaa hay'adaha ammaanka qadar oo raggan mas'uuliyiinta waardiyeen 6 qof ayaa weerarka horta xalay ku dhimatay marka dawlado fara badan ayaa cambaaray waxa kamid ah Ingiriiska Faransiiska waa Turkiga waa iska wad Carabti laakiin meesha cambaareen waxba ma tarto inkastoo Trump uu yiri hadda kadib ma dhacayso baasha hadii lagu dayo oo ay shaqeyn weysay marka waa laga raali gareynaya anaga saaxiibeyna la tahay qadar waa saaxiibkeena aniga ma ogeyn Netanyahu kaliya ayaa hawsha sameeyay kan waaysaasu ku doodaya asaga ninka Trump la leeyahay laakiin dadku waxay leeyihiin waxa wax sax ma Netanyahu iskama sameeyo wuxuu Trump u ogolaanin arintan oo kale waliba arin xasaasi ah wadan dhan qarannimadiisa in inta lagu tunto la rabo la duqeeyo marka waxa leeyahay marka sharqul awsat meel amaan ah ma jirto ninkan Netanyahu leeyahay meel alla meeshu rabo garaacaya waa kii garaacay Suuriya hubkii ay ka soo qaadatay Turkigu garaacay Turki muxuu ga qaadaya wuxuu garaacayaa Yemen madaxdii ka dilaya wuxuu garaacayaa Lebanon wuxuu garaacayaa Falastiin wuxuu garaacayaa Qatar oo jiddan wuxuu garaacayaa Iran hay wax alla wuxuu arko saasu gobolkii ugu rafanaya uu garaacaya marka sheekadu halkaas maray laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee warbaahintu aad uga hadlayso waxa kamid ah 10 loo dhigay khaliijki Mareykankii meel cidlaa inuu saaxiibtinimadii aawad diyaaradii waxay yiraahdeen amiirka qadar oo intaasoo oo milyan uu uga bixiyay Trump laaluushkii ay siiyeen ashig wax ka qaadaysa mal Israa'iil
marka haddaba hawshaas wararkaas ayaa kasoo kordhay xaaladaas qadar xayeysiisa kadib waxaan galaynaa ninkii Putin ah oo isagana Yurubiyankii ku rafanaya Poland oo tiri diyaarada daroona Ruushku leeyana soo weeraray airport xirtay Putin isaguna waa waalay nimankii Yurubiyanka ahaa qadar xayeysiisa kadib isku soo laabanayna kulanti wanaagsan markale asxaab ee meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ugu horreeyay maanta Arbacaha qaybihiisii dambe ayaynu maraynaa raalli aada haddii dhawaqa iyo waxa ay stuudiyoogii ma joogna safaraan ku jira marka iska dulqaata waxyaabaha mararka qaar shanqaraha maqlaysaan iyo waxyaabaha soo dhici kara marka sidaas wala socda qaybta ugu dambaysa marka waxaanu ku faahfaahinaynaa nimankii Polandeeska ahaa waxay yiraahdeen waxaana soo weeraray diyaarado daroon oo Ruushku leeyahay waaba iskaga kaana faysteenayaan waa soo taagay si aysan marka qatar noo keenin airport dhana la xiray oo maaragtay Poland ku yaala airportdaas la xiray ninka Putin ana muxuu rabaa inuu nimankaan qashqashaadu rabaa dhul caadi oo ka dhigtay barxad uu isaga lugaynayo Poland iska soo dulmaraa xaggaas uga imaanaa nimankii Ukrainianka nagto ka saara haddana Poland hawadeedu iska maraa Poland si u qeelinayso waa soo ridna kara maba la hadlaayaba Putin iyo kooxdiisa Ruushka maba la hadlayso adduunyadii marka waa la isu awood sheeganaa qadar waa aragteen Poland oo u jeedaan awoodaa lagu sheeganaa wax laga naxaa meesha male adduunyadii dhan way isbedeshay nin walba ninkuu ka xoog badan yahay ayuu ceeji ku dhagaa nagtu ka saara marka xaaladda adduunka halkaas ay maraysaa idinkuna waxay idin la tahay bal soo qora ma laga yaabaa khaliijkan iyo waxa kan hubkii ay Mareykanka iyo waxa kan ka iibsan jireen in hadda Chinese-ka iyo u wareegaan waxaan akhrinayay article oo qoray nin khaliiji ah oo Abdullah Mustafa la yiraahdo waxaan u malaynayaa inuu yahay Imaaraati في عواله وعيري وإنك صحنا الإيرانيين مركي قوان صدين هب إيجو أي ليهين إني سمايستا كورنك أساسوي قنتالوه دي إيجا سمايستا وحو دي إيجا سمايستا إني سرق قلبيت كتش ما أنت هب كينو لندي بداك كينو waxay isla maamalo gaalo Mareykanka soo gad ama Chinese ka soo gad waxay tarayaan male saasa nagta lagaaga saara marka sheekadaasu aad bay burtii maqaalkaas aad u fiicnaa ninka uu ka hadlay wuxuu dhahay marka hadda waxbaan ogaanay hubka soo gadato cidii la rabo loo ka celin karaa ninkii aan la rabin waxba kama taray maba arkaayo yiri ninkii qadariyaanka sirka shif maba arkinuu dhahay anaga alaabtan Mareykanka maxaa dhacay marka dhaana wuxuu yiri waa bal waa baareena sheekadu marka halkaas maray barnaamijkeygii waa naga inta asxaabay inta aan marka kulmayno meel kasto aad joogtaan la gareeyo oo share gareeyo barnaamijka waa kii ugu horeeyay maanta Arbacada alla idmo barnaamijka kale ayaan idiin soo gudbin doonaa inta aan marka kulmayno nabadgelyo